magaalada Muqdisho caasimada dalka waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka golaha wadatashiga qaranka oo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa daahfuray ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxaana goobjoog ah madaxda maamulada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hiirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Intiisa badan shirkan waxaa diiradda lagu saari doonaa 3 qodob oo waaweyn balse laga yaabo in qodobo kale oo yaryar ay hoos yimaadaan kuwaas oo kala ah amniga guud ee dalka iyo sidii lagu soo wareejin lahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta, 2 sicitaanka habraaca doorashooyinka oo musuqmaasuq badan xilligan hareeyay, 3 waqtiga cayiban ee lagu soo gabagabanayo doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya oo daaheedu uu sababay muran badan. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa sharaxaad looga bixiyay furitaanka shirkan oo ku su'aadaya xilli xasaasiya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa gudoominaya shirka golaha wadatashiga qaranka oo ka furmay Muqdisho, kaas oo diiradda lagu saarayo amniga, dardargelinta doorashooyinka, daahfurnaanta iyo jaangoynta xilliga la soo gabagabanayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Rooble. Dhanka kale, rajada laga qabo inuu guuleysto shirkan maanta ka furmay magaalada Muqdisho u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta, madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ah rajada laga qabo mid aad u yar tahay, maadaama madaxda dowlad goboleedyada taabacsan farmaajo la rumaysan yahay inay suurta ku sameyn doonaan qorshayaal dhowr ah oo ka soo horjeeda madaxweynihii hore ee madaxweynaadkiisa dhamaaday. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda dalka oo xilligan maraya ayaa ah mid aad u cakiran, waxaana dadka Soomaaliyeed isha ay ku wada hayaan qodobada ka soo bixi doona shirkan ee golaha wadatashiga qaranka ee maanta si toos uga furmay caasimada dalka. beesha caalamka ayaa door weyn shirkan ku leh maadaama dhinacyada siyaasadda Soomaaliya oo madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo khilaafsanaa shirkan ra'iisul wasaare Rooble ku dhawaaqay ay waqti badan galiyeen sidoo uu dhici lahaa taas oo doorashada dalka lagu soo jaangoynayo waqtiga cayiman ee lagu soo gabagabeynayo. Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waayihii dambe wajahaya caqabado waaweyn ee dhanka doorashooyinka ah oo tiro dhowr jeer tilaabooyin oo qaaday ku guuldareystay. xiisadda asaga iyo ka dhaxaysa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ugu yeeray madaxweynihii hore ee madaxweynaadkiisa dhamaaday ayaana ah mid sii xoogaysanayso. shirka maanta furmahayaana sidoo kale lagu soo hadal qaadi doonaa khilaafka haatan labada xafiis ee dalka ugu sarreysa ka dhex oogan sidii loo damin lahaa, maadaama doorashada dalka ka socotay uu saameyn xooggan ku yeeshay. madaxda Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hiirshabelle ayaa aad ugu dhow madaxtooyada Villa Soomaaliya, kuwaas oo lagu xaglinayo madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qodobo dhowr oo shirkan miiska u saaran ayaana xogaha soo baxay ay sheegayaan inay ka hor imaan doonaan oo khilaafi doonaan. intuusan furmin ka hor shirkan maanta ka qabsoomaya magaalada Muqdisho, ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxa kulamo la kala qaatay madaxda maamul goboleedyada dalka oo muddooyinkii dambaba Muqdisho ugu sugnaa ka qaybgalka shirkan maanta furmay ee golaha wadatashiga qaranka ee doorashooyinka, kaas oo kala hadlay furitaanka shirkan iyo sidoo kale dardargelinta howlaha horyaala golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka. shirkan maanta ka furmay ee golaha wadatashiga qaranka Muqdisho waa mid ay isha ku wada hayaan saaxiibada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya, saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo shacabweynaha Soomaaliyeed, maadaama laga sugayo inay soo baxaan qodobo wax ku ool ah si loo soo gabagabeeyo khilaafka xooggan ee hareeyay doorashooyinka dalka ka socdo. gabagabada shirkan ayaa xogaha sheegayaan in midowga musharaxiinta iyo qaybo ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya ay ka qayb gali doonaan maadaama arrimaha doorashooyinka diiradda lagu saarayo. waqtiga la soo gabagabeynayo oo cayiman lama sheegin, balse maalmaha soo socda ayuu shirkan uu ka socon doonaa caasimada dalka, waxaana ku xayiran yahay soo gabagabeyntiisa habba dooda inta ay qaadato iyo qodobada sida la isugu fahmo wada hadalka lagu lafaguri doono, kuwaas oo arrimaha doorashooyinka ugu waaweyn yihiin. inta ayaan warbixintan ku soo gabagabeynayna saaxiibayaal. halkan waa channelka wararka ee Warqad News TV. fadlan haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biro subscribe iyo like noo saar, page-keena sidoo kale booqo. halkan waxaan soo gelinaa xogihii ugu dambeeyay ee dalka xilligaas ka dhacayo.